banaanbaxyo ay dhigayeen dad u badan hooyooyin kuwaasoo ku nool koonfurta magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay ka dalbadeen in nolal iyo geeri lagu keeno caruurtoodu ay dowladda Soomaaliya tababar ahaan ugu qaaday ee dalka Eritrea. Hooyooyinkan ayaa waxa socdeer ay ku mareen wadooyinka waaweyn ee koonfurta magaalada galkacyo waxaana ay sheegeen inay ka walacsan yihiin caruurtoodu ay dhaleen oo tababar ahaan dowladda Soomaaliya ugu qaaday dalka Eritrea xilli ay soo baxayaan in dhalinyaro Soomaaliya ay ku dhinteen weerarkii ka dhacay gobolka Tigray dhaxeeyay ciidamada dowladda dalkaasi Itoobiya oo taageero militari ka riixay xukuumadda Asmara oo ayada lafteedu gadaal ka riixaysay dhalinyaro Soomaaliyeed iyo xogaga TPLF. qaar ka mid ah hooyooyinka banaanbaxa dhigaya ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay ka codsadeen dowladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug inay helaan xogta caruurtooda kadib markii warar soo baxayay ay sheegayeen in dagaalka gobolka Tigray ay ku dhinteen dhalinyaro Soomaaliya kuwaasi oo tiradoodu lagu sheegay 4,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya ka qaatay magaalada Muqdisho kuwaasoo laga dejiyay magaalada Asmara ee dalka Eritrea markii dambena lagu qasbay si xoog ah inay ku galaan dagaalka gobolka Tigray. dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxa warbaahinta qaarkood iyo baraha bulshada lagu faafiyay inay jiraan qaar ka mid ah dhalinyaradii tababar ahaan loogu qaaday dalka Eritrea ay ku dhinteen gobolka Tigray kadib markii ay la dagaalameen xogaga TPLF. arrintan haddii ay run noqoto ayaa waxa dhabarjab xoogan ay ku noqonaysaa xukuumadda madaxweyne Farmaajo oo iminkaba ay la daaladhacayso cadaadiska xoogan ee kaga imaanaya mucaaradka ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya. shacabkan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dhalinyaradoodu lagu qasbay inay si xoog ah ay ku galaan dagaalka gobolka Tigray halkaasina lagu laayay. siyaasiyiinta rogroga xaaladda siyaasadda Soomaaliya ayaa ku micneeyay in weji gabax ay kala kulmi doonto xukuumadda Soomaaliya haddii aysan keenin cadeemo rasmi ah oo ku aadan in arrintaasi ay beenin karaan iyo in kale. balse shacabka ayaa waxa ay maanta ilaa iyo maalmihii la soo dhaafayba ay hadalhayeen in dhalinyaro kor u dhaafaya 4,000 oo dhalinyaro ah kuwaasoo dowladda Soomaaliya ka qaaday magaalada Muqdisho marka horena lagu qiyaanay in loo qaadayo dalalka Turkiga Qatar balse laga dejiyay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. dhalinyaro badan ayaa sidoo kale horey loo geeyay dalka Eritrea kuwaas oo la sheegay in tababar ay ku soo qaadan doonaan wadamada aan kor ku soo xusnay ee dalalka Qatar iyo dalkaasi Turkiga. balse dowladda Soomaaliya ayaa weli iska dhigatiraysa baaqa kaga imaanaya shacabka maadaama dhalinyarada ay qaadatay ay dhalan waalidiin isla markaana waalidiinta iminka ay codsanayaan in ay xog buuxda ay ka helaan caruurtooda oo dowladda Soomaaliya u qaaday dalka baxsan Soomaaliya. dhalinyarada la qaaday ayaa la xaqiijiyay in tababar aysan dhamaysan isla markaana aysan awood u lahayn in ay la dagaalamaan cudud xoog badan balse si qasab ah lagu geliyay sida la sheegay dagaalka gobolka Tigray. dowladda Soomaaliya ayaa ka leexleexinaysa hadallada kaga imaanaya shacabka iyo mucaaradka taasoo ku aadan in ay meel ku sheegaan dhalinyaradii ay ka daadgurayeen magaalada Muqdisho kuwaasoo laga dejiyay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. muddo bilah dagaal ka socday dalka Itoobiya ayaa waxa nolosha saraakiil askar fara badan oo kumanaan kor u dhaafaya looga dilay dowladda Itoobiya oo taageero militari ka helaysay xukuumadda Asmara oo lafteedu si qasab ah ay ku soo kaxaysay dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababarka dhamaysan kuwaas oo lagu laayay dalka Itoobiya. dhalinyaradan ayaa la sheegay in 900 oo kamid ah hal meel ay ku go'doomiyeen xogaga fallaagada TPLF isla markaana halkaasi ay ku noqdeen kuwa geeriyooday kuwa dhaawacmay iyo kuwa firxaday balse lama hayo firxadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababarka wanaagsan aan lahayn oo ay ku baxeen gudaha dalkaasi Itoobiya. xogaga TPLF ayaa xilliga dagaalku u socday waxa ay sheegeen laftoodu dhalinyaro Soomaaliya oo ka barbar dagaalameysay ciidamada dalkaasi Eritrea.